السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دواذا كعمة فرن كسو دواذا وجه فرن كسو دواذا ودنا فرن كسو دواذا ولا ليال ومهتسنتهين كسو دواذا channel كيس أنفع وأني ولا شين شكري مجان سو دواذا مركا maanta insha Allah waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago erayo aan qoray oo ilaa 20 qodob ah ereyadaas oo ku saabsan dadkii iyo dalkii qof walaal ahna uu iga proofread ku sameeyay oo calashaan marka qore kadib uu fiiriyay wixii qalqaldan iyo wixii toosan marka qofkaasna aad iyo aad u mahadsan yahay marka ereyada waxa waa 20 qodob 20 qodob marka waa sida tan kan koowaad waxa way waxaan ahay aniga oo ah shaqsigan ahay soo hadhow mar labaad aan idin fasiraa laakiin hal mar toos oo akhrina soo fahantiin ka bacdina maybe insha Allah waa idin fasiraa hadda fursad ii saamaxdo iyo waqtiga insha Allah okay kan koowaad waxa way waxaan ahay aniga waxaan la yaabaa qaraxa iyo qasaaraha waxaan maqlaa dhimasho iyo dhaawac waxaan arkaa xaqdaro iyo xoog waxaan rabaa amni iyo adeecid waxaan ahay muslim waxaan dareemaa dayac iyo dandaro waxaan tabaa cadaalad iyo caafimaad waxaan ka walwalaa nolosha iyo nafsiga waxaan la ooyaa agoonta iyo arxan darada waxaan fahmaa silaca iyo saxariirta waxaan dhahaa aan xorowno waxaan iska dhigdhigaa dayaxa waxaan ku riyoodaa rajo iyo raxmad waxaan isku dayaa mustaqbal iyo midnimo waxaan rajeeyaa guul iyo gobonimo waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaa i haysta niyad jab I hope ina fahanteen waxaa idin rajeynayaa ina fahanteen waxaas oo dhan waxay ku saabsan yihiin waxa guud ahaan fikirka iyo dareenka aan ka arkay ama ka dareemay dadka iyo dalka Soomaaliya sababtoo ah dhibaatadii dibaca isilacay waxaan arkay ilaa markaan dhasho indhaha soo kala furay xabad iyo kala orod iyo cabsi iyo nax iyo waxaas un baa arkay nabad weligay maba arkinba Soomaaliya intaan noolaa marka waa nasiib daro inaan anigoo hadda hooyo noqday haddii aan wax ka qaban weynana si wadajir wax uga qaban weynana maybe ina ilmaheena hadda arki waayaan nabad buuxdo nolol buuxdo iyo iftiin buuxo qof kastoo Soomaali ah ama dalkii joog ama dibadda joog mas'uuliyad ayaa ka saaran sida uga shaqeyn lahayd nabadgelyada iyo nolosha wanaagsan ee qof walba